su-aasha saddexaad question 3 question 3 kan waa part 3 way maaha su-aasha question 3 part 3 halkan ku joojinaa maanta part 3 qaybta ka xogta sidii u qorto data u qorayay part 3 su-aashiisa koowaad uu wareera computerka. Okay, waa su-aalaha xalinaysid answer all the questions kulli ka jawaab. imtixaanada fanfoorka qayb waxay imaan jidhay su-aalaha qayb ka tago kala 5 ka door ama 4 ka door ama 3 ka door, laakiin ta waxa way kulli ka wada jawaab. Okay, sawir baa lagu siiyey diagramka meesha ka muuqda. waxaa lagu weydiiyey triangle C is formed after translating A. triangle-ka C la yirahdo meesha kaga muuqda waxaa la sameeyey wuxuu samaysmay ka bacdi markii la durkiyey A. durkin kaliya lagu sameeyey. translation waa rarid markii la raray ee wareejin kuma jiro wax kale kuma jiraan, waa rarid kaliya markii la raray A. by a column factor waxaana raray yani raradu ma gacantana ku qaadaysa usuraysa xisaabta meesha la jooga xisaab kala raraysa. column factor A la yiraahdo raray by A lama roon magac lama siin. waxaa lagu weydiiyey marka hadaba column factor-ka uu soo saar meesha lagu baneeyay waa blank space. waana column factor-ka tirooyinkiisa waana qortaa. waxaa noo tirisaa hal point oo kamid hal point qabsanaynaa hal point oo kamid intuu durkay noo tiri pointigan pointi ku aadana waa kan sababta xagasha quneed waa tana xagasha quneed waa tana iska muuqataan oo kii ku aadana kan yahay. haddaba kan meequu guure kow x iyo y x dhinaca x oo mu guurin sababta toos buu ugu aadan yahay. y buu guuray y buu hoos u guuray weliba wuxuu guuray 1 2 3 4 5 5 god buu hoos u baxay. haddaba waxaan dhahaynaa ideed waxaan dhahaynaa shapekaas oo dhan x oo mu dharaaqay maaha pointiga qabsanay keliya maaha shapeka dhan waa saas kale. waa ina wuxuu guuray 5 god oo laakiin hoos sidaa darteed minus c column factor-kaas. anyway inaga socodsi doonayaan waxaan sharaxaad u baahnayn xafud haddaa sharaxaadda ku badisid wax adag buu noqonaya. inaga socodsi. Okay, su-aasha labaad describe the single transformation which maps triangle B from triangle A. waxaa la rabaa translationka kaliya noocyo translation kala duwan. waxaa jira rotation wareejin baa jira, reflection baa jira, inicicaas ana muraayad dhex dhigsid. waxaa jira translationka hadda kuu sheegaya oo ah rarid guurin. haddaba nooca sheeg A B u bedelay. A ba asalkii ahaa B buu u bedelay noocee weeye waa muraayad caadi ana halka dhigtid yani tan waa adoo muraayad A oo muraayad isku fiirinaysa waa B. taamna waxa weeye meesha waxa ka dhiman nooca translation kala sameeyo waxa weeye reflection. haddaba double I waxaan qoraynaa reflection kaliya tan xisaab laga rabo yani waa describe reflection. su-aasha describe ahayd tawsiif ku samee wasf reflection. waxaa la galay su-aasha labaad oh yeah no su-aasha labaad B way ka bilaabantay eedadi waa la ilaawan tii horan A been baa la siiyey sababtoo ah B ma jirin sidaa darteed lama baran A la siiyo. anyway B baan qoraynaa anaguna. waxaa lagu siiyey factorka A la yiraahdo oo intaas B la yiraahdo intaas kabacdina isku dar baa lagu yahay straight forward. su-aasha labaad B deeda A ma jirin laba factor baa lagu siiyey A plus B baa lagu weydiiyey A plus B. factorka A la yiraahdo soo qaado meequu ahaa sidana la siiyey 3 4. factorka B la yirahdana soo qaado meequu ahaa -2 2 laba isku soo dar labadan kore isku dar yani wixii x isku dar wixii y isku dar waxaa soo baxaysa labada isku dar waa 1 caadi kaliya waa number 1 sababta tan waa minus wata wixii baabinaysa labadana way isku darsanayaan waa 6 waa meeqa waa 16. su-aasha taa I bay ahayd B I deeda B double I deeda soo hadhay
b double I b double I waxaa soo xisaabisaa dhererka magnitude-ka vector a vector a magnitude-kiisa xisaabi vector a magnitude-kiisa xisaabi qaabada loo xisaabin jiray waxay ahayd labada element maxaa dhahaa muxuu ka kooban yahay labada tir uu ka kooban yahay mid kasta laba jibaar isku darka wadana xidid loo jeer ka saar waa Pythagoras caadi 3 squared plus 4 squared labadaas laba jibaar mid kasta isku dar waxa aksanay tahay xidid laba jibaarka 25 ka saar ugu dambeynta waa 5 errorka a dhererkiisa markaan ku leeyahay aan ku tuso lama sawirin in la sawiraan u qoray anyway dhererkiisu waxa weeye waa 5 su-aashana kugu xogta no tii hore question 3 may ahayn oo iskaga khaldeen question 3 hadday qoreen question 3 computerkiina waa wareeray question 3 arkar u soco okay question 3 and students in grade 4 are asked about whether they like camel, horse or hen. ardada fasalka afraad dhigata waxaa la weydiiyey kii ay jecel yihiin ma geelay jecel yihiin ma waxay jecel yihiin fardaha mise waxay jecel yihiin digaaga haddaba studentskii dhammaantood mid kasta ugu yaraan ardada dhan ugu yaraan waxay jecel yihiin mid ka mid ah xayawaanada yacni kuma jiro arday yiri dhammaantood ma jecel anigu waxaan jeclahay idahaan jeclahay anyway يعني كل way ku jiraan meesha haddaba su-aasha lagu weydiiyey Venn diagram baa lagu muujiyey camel geeli hen digaagii iyo horse fardihii geela keliya waxaa jecel geela keliya jecel oo aan digaag iyo fardo midna jeclaan 12 digaag keliya waxaa jecel 7 fardaha keliya waxaa jecel 18 kaas waxa weeye waxa kulli wada jecel sababta 15ka saddex goob way ku jiraan lixda waxa weeye waa inta geela iyo fardaha soo jecel 8 waa inta digaag iyo fardaha isla jecel 14 kaasna waxa weeye inta geela iyo isla jecel digaaga geeli digaaga 14 kaas haddii su-aasha ay qori mayno waa ka laabto wixii ahaa anaa qoro waxaa lagu weydiiyey su-aasha koowaad how many students like all 3 animals intee arday baa jecel dhammaan xayawaanada waa 15 ka dhexda ku jira waa 15 kaas goobo kasta ku jira tirada kaliya goobo kasta ku jira waa 15 sida meesha ka muuqata haddaba intee only camel jecel geel oo kaliya waa 12 kaas waa inta geel gaarka u ah lixda ma dhigi kuma dari karid sababta lixda fardaha goobada fardahana ku jiraan sida 12 kaliya intee baa jecel geela iyo fardaha kaliya yani aan digaag jeclayn geela iyo fardaha kaliya waxa weeye waa lixdaas geela iyo fardaha way jecel yihiin both way jecel yihiin waa lixdaas okay intee what's the total number of students in grade 4 waa maxay totalka ardada dhigata grade 4 a lot aad bay tiro badan yihiin waa dhammaan wax meesha ka muuqda 12 lagu daray 14 15 7 8 9 intaas ku wada waxa soo bixi doonta mar baan ka shaqeeyay foqadana ku qoray 8 arday way totalku wadaan saxay way isku dar tiradaas hadaan saxi waayay adaa yaqaan sida isku darto waxa lagu siiyay halkan given these complex numbers hadii lagu siiyay complex numbers kan tirooyinkan murakabka co multiply isku dhufo labada tiro isku dhufo b add kabadana isku dar aan ka shaqeyno tan oo multiply add waa question here question 4 a waa isku dhufo labada complex number Soomaaliga dhibaato haysta hadduu heli jiro qof jira helaya erebixinada Soomaaliga laga qoray xisaabta iyo maadooyinka kala sayniska qayb yar baa haya dhameystiran please linkida hay gula wadaago commentiga intaas ku dhufo 4 minus 3i intaas ku dhufo waa isku furdi caadiga 12 waxa ku dhacaysa 2 ku dhacaysa 3na waxa ku dhacaysa 2 ku dhacaysa baana isku fududeynaysa 12 4 ku dhufo waa meeqa 48 48 12 wax ku dhufta 3 minus bay wata iska jir
waa 36 i-dana raaci 3 waxaa ku dhufataa 4 plus bay wataan waa 12i waa 12i yaa saxsana ma soo khadana saxsana labada ugu dambeysana isku dhufo minus bay wataan horta 3 ku dhufo waa 9 i ku dhufo waa i squared i ku dhufo waa i squared tabtadan usoo qaato labadan isku fudee 36i iyo 12i labadu i bay wataan waana laba tiro caadi sida isku darmaya hadda maadaama midna minus wato midna plus wato way kala jarmayaan sida waxa soo harsa labada kala jar waa 24i waxaan naqaanaa sidoo kale i squared inay minus 1 ahayd sida darteed meeshaas waxaa soo baxaysa haddaan bartaa ku fududeeyana inta dhowr jeer qori lahaa -9 -1 ku dhufo -1 bay noqonaysaa i squared ka sida darteed minus ku dhacaya plus bay noqonaysaa meesha waxaa ka soo baxaysa plus 9 9 iyo 48 waa isku tiro waa isku qabiil waxay noqonayaan isku dar waa meeqa waa 50 iyo 7 tanna waa bahgooni maadaama ay wadato 24i inta soo saaraa b baa ku soo hartay isku dar baa lagu yiri 12 plus 3i waxaa ku dartaa meesha hor ku dhufay ahayd waxaa ku dartaa meeqa 4 minus 3i 4 minus 3i ku dartaa fudud wax badan maxaa dhahaynaa wixii aydan yani ilaawin wixii isku tola isku dar wixii kale isku tolana isku dar ayagana yaa isku tola wixii aan ay wadan waa isku tol wixii kale waa isku tol 12 plus 4 waa isku tol labada kale waa isku tol plus 3i minus 3i plus 3i minus 3i isku dar labadan waa 16 labadan isku dar 3i minus 3i waa 0 sidaas meesha waxa weeye waa 16 okay ka socodsi aan babsiino su-aasha ku xigta question 5 given the function calculus waa la galay culculus given the function y equals x cubed minus 2x squared minus 9x waxaa lagu weydiiyey waxaa raadisaa find the gradient of the function when x equals 0 waxaa soo heshaa tirada functionkan markay x la mid tahay 0 tirada functionkan soo hel markay x la mid tahay 0 functionkan qorano kabana tiradiisa aan raadino waa su-aasha meeqa su-aasha shanaad a-diisa functionkan aan qorano y waxay la mid tahay x cubed minus 2x squared minus 9x waxaa lagu yidhi waxaa soo heshaa tirada functionkan when x equals 0 find the gradient or the slope the gradient markay x 0 la mid tahay waxaan naqaanaa haddii lagu siiyo function horta functionkan male gradient constant male aan isbedelayn ma doorsama male sababta waa aragtaa x cubed x waa curve qalqalocsan buu leeyahay curve mar hadduu qalqalocsan straight line usan toosnayn ama saa toosnayn ama saa toosnayn gradient is bedelaya sidaas meel cayan baa lagu weydiiyay line ka dhan lagu weydiin curve dhan gradient is waxa lagu weydiiyay point cayan oo ah x markay 0 kaliya tahay soo saar gradient waxaan naqaanaa haddaba in la sameyn jiray markii la raadinayo tirada ama gradient in functionkan la xigi jiray xig functionkan dy ama dy over dx u bixi ama y prime u bixi waxa doonto u bixi micnaheedu waa xigid x cubed xig see loo xigi jiray x cubed waxay noqon jirtay powerka hore soo dhig isla tiradii laftigeediina barta dhig oo laakiin powerka ha laga jaray tana tabtoo kale powerka hore soo dhig labada way ku dhacaysaa waxay noqonaysaa 4 x squared waxay noqonaysaa x to the 1 x to the power of 1 laakiin 1 ka qori mayno x tan 1 bay ku jibaaran tahay saa darteed 9 ku dhufo waa 9keedii x to the 0 meeshaas x to the 0 waa hal saa darteed waxba ma baahnaa qorno waa iska tirtiraynaa x to the 0 waa iska tirtiraynaa haddaba maxaa la weydiiyey markay x 0 la mid tahayna la weydiiyey haddaba y prime markay x 0 tahay y prime of x way meeshaan y prime markay x 0 tahay waxa weeye meesha 0 ku bedelo intaan waa 0 ku bedelo waa 0 intaan 0 ku bedelo waa 0 sababta wax kastoo 0 lagu dhufto waa 0 maxaa soo haraya -9 inta isku soo fududay waa -9 taamana waxa weeye pointiga x markii la marayo soo haddaan sawirano wixii pointiga 0 markii la marayo curve-gan
gradientgiisu waxa weeye minus 9 taa macnaheedu waxa weeye horta aad buu u dhacsan yahay kow qaab saan u dhacsan yahay maadaama uu minus yahay hadduu saan plus ahaan lahaa saan u noqon lahaa laakiin saan u dhacsan yahay dhinacyada meelahan inta wuxuu doona ha noqdo laakiin at least waxaan aqaanaa pointiga markii la marayo gradient inuu saan yahay waana muujin karaynaa desmos waan adeegsanaynaa desmos graph typingkaygu wuxuu noqdaa baaba markaan axduubayo oo iska roonaa desmos graph adeegsanaynaa waxaan isku dayaynaa inaan waxa aan predict garaynay ama aan saarinay ana run yihiin functionka caadi u siinaynaa marka muxuu ahaa functionku x to the cube x to the power of 3 minus x to the power of 3 2 x to the power of 2 minus 9x oh good sida meesha ka muuqato markii x la marayay 0 markii x la marayay oo taasaas usoo dhacsan yahay sidaa sheegnay tabtaas usoo dhacsan yahay dhinaca kale waxba igama gelin maanta ugu yaraan gradientiga minus 9 aan soo saaray intaas u saadaalinaya anuu aad usoo dhacsan yahay markii sagaal la marayo saanna usoo dhacsan yahay okay su-aasha ku xigta fine intaas soo hel functionka lagu siiyey 4x cubed integration ku samee dx bay ilaa anu gadaal ka raaciyo caadi waxaa le integration caadiya waa b waa b waa b maxaan la weydiiyey aaway weliba waa definite integral ilaa meesha ka bilaabaysa ilaa meesha joogto waa lagu sheegay waxaa lagu siiyey 4x cubed plus 6x squared okay sir plus 6x squared plus 2x intaas dx ka wiilaa wana u raacnaya tabarucaadahaan intaas intaa waxaa lagu yihi xigitaanku wuxuu kasoo horjeedaa no xig maaha integrate garaya waa integrate Soomaali wax lagu ma garanayo integrationku wuxuu kasoo horjeedaa xigidii haddaba hadeed xigidii maxaa sameynay 2x hadday ahayd x square waxaana hore jibaarka hore ku dhufo 4x halna ka jar to 1 maanta waa tii cagsigeedii maadaama cagsiga sameyn maxaa sameynaa marka hore jibaarka hal ku dar kabacdina u qaybi sababta waxaan dhahaynaa 4 jibaarka hal ku dar waa 4 kabacdina u qaybi sababta dib baa loo celinayaa dib baa loo noqonayaa wey okay tana tabtii oo kale jibaarka hal ku dar hoosna u qaybi 6x cubed loo qashada plus 2x so halkan hal baa ku jibaaran saddex halka hal ku dar waa labo labana u qaybi maxaa lagu weydiiyey labada meelood ka qiimi baa lagu yiri x markay hal tahay x markay 2 tahay haddii area xisaabinaysa qofka fahmaya area xisaabinaysa isbana ogid anyway laakiin maanta ma garanay waxaas 2 ku bedelo meesha meel kasto meesha waxaa taala 2 ku bedelo horta labada afar isla baxayaan halkaana way isla baxayaan saddexdaas meesha laba ku soo arsa labadana isla baxaysa meesha way fududaatay x to the 4 plus 2x cubed plus x squared laba meelood ka qiimeeya 1 iyo 2 okay 2 ku bedelo meeshaas laba afar jibaar waa 16 labo saddex jibaar waa 8 laba ku dhufo waa 16 kale oh axsan ma soo saarin baa malan yaanu wax qalad xisaabsaday okay anyway plus labadaasna aad iska soo qaado intaas waa markaa 2 ku bedelanay intaas waxa hare markaa ku bedelanay 1ka waana ka jartaa qaybtan waa laga jaraya markasta 1ka ku bedelo meeshaas halka jibaar tana halka jibaar wax dhan waa isku midkii saddex waxa isku bedelmayaan waxaana halka jibaarna afar waa halkiisi halka jibaarna saddex waa lagu dhufay laba waa labadiisi iyo hal ugu dambeynta intaas ku soo wada dar 16 32 intaas isku soo dar waa 4 tamana waxa weeye jawaabtu waa 30 waa saan filayo jawaab qaldan baa soo saaray warqadayda labada lagu dhufanaya ilaa okay su-aasha ku xigta question 6